السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودكتور آدم محمد عبد آدم المخت اللي يراه وكان قيب قال ماشي اللي يراه لندن قيب مقالة اللي يراه وست لندن هيس حمادنا يسور قدبنا يا برامج كي لبعض كوزاب سنة نجح كليها أما كدني ستونز على يراه مرجع وحرب أنا ضدك لك لا تصو أي كلا جذان حنونك كليها يا حنونك عميتدو inay isku mid ahayn inkastoo mararka qaarkood xanuunka qofka ay aan kala garan karin markuu xanuun qof kula yimaado ila halka boga laga hayaa ma kalidiba inkastoo kalidu ay ka duwan tahay halka dhabarka feer calaanta u dambaysa bi kalidu ka xanuunka bilowda gol jilcdu maraa halka xiniinta ku aadan buu aada ama gol jilcdu u badan yahay ama bog hoostiisa marka xanuunkiisu saas buu u subsan yahay laakiinse xamaytudu halka boga laga qabta garabka laga qabta marka labadaba marka isu dhow yihiin mararka qaarkood lama kala saari karo ilaa qofka la baaris lagu subiyo maana laakiin waa laba waxyaalood kala duwan oo mid wax keeneen marka gol balaarinka waxa keenay miisaanka iyo mataqaana cunto xumada tana waxa keenta waxyaalo kale marka dhagaxa waxa keenay waxay yihiin waxay badan yihiin dadku dhacda qolka 30 ilaa 60 qofka ah bay u badan tahay waalidina waa ka dhacdaa marka waxa weeye waxa la yiraahdaa 20 qof 20 ninba mid saddex ku dhacdaa ama dumarkana 20 dumar laba ku dhacdaa marka waxa weeye waa wax dhaca oo jira waxaana kamid waxay kamid noqon kartaa inuu kidnigu dhagaxay ku xiran tahay dhagax haduu mataqaana 6 ama 7 millimeter ka baday ka yar yahay badanaa buu soo raacaya kaadida maadaama kaadidu hadday tahay filtrationkii ilaahay qudradiis maadaama kalidu ay tahay wax filtrareynay cuntadan cunaynay baa waxay noqotay in wixii soo maro dhan ay kalida maraan wixii mataqaana saxarada iyo halka aadam maahane marka beerka mataqaana xusubiyana waxa way xamaytooda galaan dhagaxna wuxuu soo aadaa kaadu soo aadaa marka waxa dhici karta inuu ka bilowdo dhagaxaas meel kamid ah jidkaas kaadi mareenka ah ka noqdo ureterka kaadi afkeeda ha noqdo kelida meel ka bilowdo ha noqdo ureterka ha noqdo kaadi haysta meel ay ka galaan ha noqdo saddex afar meelood oo mataqaana uu ka laamo tuubada dhiig kaadu marto waa dhici karta inuu mataqaana dhagaxaas mari kari waayo iyo culayska uu leeyahay intay laagtahay marka maxaa keena weeye waxaa keena cudurkan waxa la yiraahdo dhagaxa wuxuu ka subsan yahay badanaaba dhowr nooc baa jira waxaa keena dhagax waxa la yiraahdo jirkeena waxa subinaya ilaahay qudradiisa waxaan cunno dhan wixii beerka marmaan inta kala marta kelida markay filtrarayso qashinkii soo saarto qashinkii soo haray waxa la yiraahdo crystals baa subismaya crystals waxay maraa marka kaadi mareenka oo tuubooyinka kaadi mareenka waxa leedahay meel godad ah ilaahay u talagalay in kaadi ku abuuranto meeshaas baa mataqaana waxa firisanaya dhagaxaas firisanaya marka dhagax soo dhagax weyn noqonaya marka waxa la rabaa qofka in mataqaana noocyadii hadhow baan idin sheegi doonaa noocyada waxaa kamid ah noocyada keenta waxaa kamid ah calcium waxa la yiraahdo ya waxaas markay isu dhowaadaan oo biyo la'aan badan u badan tahay ada biyo cabinin ama infection keeno dhagax inuu yar yar isu yimaado keeno marka qayb kamid ah waa chemicals jirka uu soo saaray oo laga baray cuntada cunayna bariiskii hilibkii masagadi waxaan cunayna dhan waxba ka soo haraya wixii mataqaana jirka u baahnaa wuxuu soo maraya qaarna saxarada aadiya qaarna kaada qaybta kaada soo martay baa kaadida waxay noqonaysaa in mataqaana kelidii ay meel ay ku aruurinaysa kaadada dhagaxu ku yimaado oo ku bato oo mataqaana biyo la'aan ay timaado marka infection yimaado ay marka dhow dhagax ka aruurin meeshaas marka qayb la yiraahdo waxyaalaha la abuurin waxa kamid ah calcium waxa la yiraahdo calcium waxa kamid ah wuxuu ka yimaadaa waxaan cunaa dhub kamid ah calcium kamid ah waxa kamid ah dhagax waxaan leeyahay calcium ku maado jirka ay soo saarto ammonia waxa la yiraahdo breakdown waxa la yiraahdo protein aan cunayna wixii markuu haraaski baa imaanaya uric acid waxa la yiraahdo milix ayadana kamid ah weeye iyo cysteine waxa la yiraahdo afarta qaybood buu badan yahay badanaaba afar qaybood oo chemicals oo la yiraahdo calcium ammonium uric acid and cysteine afartaas ka subsan yahay marka afartii maxaa keena weeye waxaa keenay waxa badan tahay dadka cuna high fiber diet high protein low fiber waxa weeye qofka cuna hilibka ariga hilibka badan hilib badan cuna qofka khibrada badan caba qofka mataqaana aan soconin oo iska fadhiya qof mataqaana family ahaan u haysta inuu mataqaana kalidiisu dadka family ahaan ay u qabaan in dhagax ka abuurmo inuu qofkaas hadda koor asagoo yar dhagax ku bilowday asagoo 25 sano jira waxaa kamid ah asagoo mataqaana qofka in qaliin lagu subiyo khaasatan xidmaha laga qalay ama cudurka la yiraahdo chronic disease ku dhacay marka waxaa kamid ah macnaha kelida wax lamid ah ceebta ay cuntada la cunayo iyo biyo la cabayo iyo mataqaana kelida oo calaamooyinka lagu yaqaanay iyo qaliinlan la subiyo ayaa wax keeni kara in dhagax kugu abuurmo waxaa kaloo keeni kara dawooyinka keeni kara waxaa kamid ah dawada aspirin la yiraahdo dad baa iska cuna badanaa dawada anti acid la yiraahdo waxa lagula dagaalamo Soomaalida aad bay u jeceshahay gaas baan qabaa waa iska cunaya marka iyadoo dhagax bay keentaa waxaa kamid ah dawada la yiraahdo diuretics ama kaada lagu badiyo way keentaa iyadoo
sida biyo bay yaraanayaan marka biyuhu kaa yaraadaan dhagaxii baa fariisanaya meesha waxaa kamid ah antibiotic qayb kamid ah waa keenaan dawada aidska lagu daweeyo waa keentaa waxaa kamid ah dawada lagu subiyo epilepsiga ama mataqaana suuxdamaha lagu daweeyo way kamid yihiin marka dhowrkaas shay baa la ogyahay inay mataqaanaa qofka ay u keento marka noocyada la keeno waxa sheegay nooca la keeno waxaa kamid ah calcium stones inuu yahay marka calcium stones wuxuu ku dhacaa badanaaba marka calciumka ka yimaado calciumka markuu ku bato kaadida ku badato calciumka wuxuu keenaya mataqaanaa qayb lagu dhashaa jirta la yidhaha calciuria biyaha calciumka shirka ku badanaya waxaa ku dhaca cudur la yidhaaho parathyroid gland qanjir yaroo ku yaala dhuunta meel kamid ah baa wuxuu soo saaraya maado tira badan oo calciumka jirka ku badanaya markuu soo bato kaasna wuu keenaya waxaa kaloo baanaya marka kidney diseases keliyada lafrigeeda cudurro ku dhaca oo iskaga yimaada waxaa kaloo jira waxa la yidhaha sarcoidosis waxaa weeye sarcoidosis waa cudur immune system kamid a oo qofku cells badan dhalinaya waxaa kamid a qaar kansarka kamid a kansarka marka kansarka waxa weeye xataa daaweynteedu wuxuu keentaa inuu mataqaanaa calciumku jirka ku bato marka cusbadiga qayb kamida qaar baa marka noocyo adag oo waaweyn bay soo bismayaan uric acid kuwa la yidhaahana waxaa keena large amount of acid baa jirka kaadida acid badan baa soo geliya mataqaanaa kaadida soo raacaya waxaa kamid ah dadka proteinka badan caba aan fiberka cuntada cunanin hilib badan ninka dadka cuna dadka goudka ku dhaco cudurka la yidhaha mataqaanaa goudka oo lugaha qofka infection geliya waxaa kamid ah qof mataqaanaa cudurro ku dhaco oo antibody hereditary disease la yidhaaho cudur ku dhaca chemotherapy dawada mataqaanaa dadka lagu daweeyo cudurrada kansarka baa keenta marka qayb kamid iyadana waxaa jirta waxa la yidhaha cystine stones waxa la yidhaha iyadana qayb kamid a qayb chemicalska kamid ah oo jirka iskaga dhashana waa jira marka waxaa loo baahay noocyadaas baa jira marka maxaa la suubin weye marka maxaa lagu diagnose gareeya weye waxaa keenaan kuri waxa weye biyaha la cabinin infectionka ku dhaca qofkii cunto protein hilib badan oo la iska badiyo khamro badan oo la cabo daawada la qaato kansar daawadiisa la qaato aidska qayb marka cudurrada waa badan yihiin keenta laakiin maxay tahay macnaheedu waxa weeye biyihii kelidu marahayey dhagaxii haddii kelidii biyihii marayay hadday yaraadaan dhagaxii wuu fariisan meesha ya marka meesha fariistaan dhagax waa isku dhegi dhagax waa su bismaya marka qofka muxuu u baahan yahay see loo diagnose gareeyo marka waxaa loo diagnose garanayaa in mataqaana qofkii number 1 dhiig laga qaado number 2 laga qaado x-ray number 3 laga qaado mataqaana kaadida laftigeeda la fiirsho noocyada laftigeeda in la raajo keenaya iyadana way u baahan tahay in la ogaado maxaa kaloo jira kaadida laga qaada dhacaan marka qaadkood kaadida laftigeeda dhagax baa laga helaya ya kaadida baa laga helaya laftigeeda iyo dhiigga laga qaado waxaa kamid scan baa laga qaada marka qaarkood raajada x-ray in laga saaro waa dhici karta image ultrasound scan la subiyo iyo CT scan la subiyo ultrasound la subiyo dhiigga qofka laga qaado infection la baaro intaas lagu heli karaa intravenous IUV waxa la yidhaho waxa weye waxa lagu durayaa dye waxa la yidhaaho halkaa laga durayaa waxaa la fiirinaya keliya soo shaqeynayaan iyo dhagax meesha ku jiro way sheegaysaa haddana iskaano fiican waa la keenay oo lagu ogaado marka easy in lagu ogaado qofka Soomaaliya say easy u tahay ma garan karo laakiin hadda waxaa la subiyaa umaranaya Soomaaliya raajal la saaro qofka ama scan aqoontii iyo mataqaana say tahayna ma garan karo aniga laakiin waa hadda waa la ogaan karaa marka badanaaba dhagaxa kelidu raajaxda marka qaar lagu arkaa hadii la raajo arka dhagax fadhiya meesha marka maxaa lagu subin marka daweyntiisu maxay tahay marka daweyntu waxay tahay biyo badan oo la cabo waxa ugu muhiimsan waxay tahay xanuunka in laga jabiyo qofka marka qofka xanuun baahaya dhagax marka meelahan sheegnay oo kelidu tubada kaadu maraysay meela ay ka laabantaa jira meelahaas fariisanaya marka waxaa la rabaa qofka in mataqaana uu barto inuu horta number 1 biyo badan cabo marka uu horeysa laga rabaa biyo badan cabo biyo marka laba gaalon 2 litir u yaraan baalki cabtid waxa weeye waxyaalaha yarka oo dhan oo 6 millimeter wax ka yar oo dhan ama 7 millimeter uu soo raacaya kaada soo raacaya oo baahan wax laga qabto marka waxaa ka muhiimsan marka in laga joojiyo marka xanuun hadduu qofka qabto bisan biyo hadduu xanuun leeyahay in xanuunka laga joojiyo matagi laga joojiyo biyo badan la siiyo biyo badan qofka cabo haddii inta ay dhaafto oo la ogaado dhagax inuu ku jiro meeshii qof u baahan markii istaalo uu galo sida xanuunka marka qaar dhiig baa ka yimaada qofka qandhada xanuunka mataqaana gariir badan matag tira badan calool xanuun tira badan kaado marka dhiig soo raacdo marka intaas markii la helo marka xanuun baa qofkii mataqaana biyo badan la siiyo drip lagu subiyo xanuunka laga joojiyo marka markii hadduu ka badan yahay marka dhagax ka badan yahay 7-8 millimeter wuxuu u baahan yahay in la soo saaro marka lagu soo saaro waxay tahay dhowr kala nooc extracorporeal shock waves waxa kale la jabin karaa waxay tahay kaliyaha dhagax ku jira hadduu ka badan yahay 7 millimeter laser baa lagu garaaca lagu dhufanayaa laser wuu jabinayaa qofkii biyo badan baa la siinayaa wuu soo raacaya waxaa dhici karta in mataqaana la siiyo qofkii hadday haysta u dhowaanteeda ku jiro
tuuba afka waxaa laga gelinaya mataqaana maxaa la yidhaahaa ama waxaa laga gelinaya mataqaana ninka baalkii ama dumarka waxaa laga gelinaya gudaha ama ninkan waxaa laga gelinaya mataqaana xubinta ragga markaas meesha loo tagaya dhagaxii lasoo qabanaya mararka qaarkood haddii kale in la duloosho waa dhici karta qofka caloosha laga duloosho meesha loogu tago laga soo qaado ama aan la qaado qalid lagu subiyo marka haddii lagu subiyo labadaba waxay sahlanaysaa boqolkiiba 95 buu shaqeeyaa hadda midkan qofka la duloolinayo boqolkiiba 90 effective ya 86 baa leeyahay boqolkiiba ya marka qofka haddii la subiyo midna waxa weeye haddii dhow 12 milimitir ka badan yahayna waxa weeye boqolkiiba 80 waa la soo saari karaa marka waxa weeye qalliinku wuu sahlan yahay laakiin waxaa la rabaa keliya xanuunka in la ogaado in wax laga qabto waxaa u baahan tahay in qalliinka lagu subiyo marka maxaa dhici karo haddii aadan wax suubin weeye marka waxaa imaanaya haddaan dhagaxii laga soo qaadin meeshii dhagaxii meesha wuu jirayaa infection buu sii bilaabaya viral infection baa ku dhacaya dhiig badan baa ka imaanaya xanuun badan buu leeyahay waxaa dhici karta xanuunka inuu duloosho meesha mataqaana marahayay uu ka dhex baxo dhibaatada leedahay marka waxaa la rabaa si uusan complication u gaarinin in wax laga qabto infectionka iyo waxaas marka weeye boqolkiiba 5 ilaa 10 baa qofka baa waxaa ku dhaca mataqaana in dhibaato ku dhacdo markii tuubada la soo gelinaya wax gaaraan laakiin waxaa loo baahan yahay in wax laga qabto markii la daweeyo marka u muhiimsan waxay tahay arrinta aan muhiimka waxay tahay xameytida iyo dhagaxu waxay leeyihiin waxaa la yidhaha prevention ka hortag bay leeyihiin ka hortaguna waxaa weeye qofku sidii uu jirkiisa ula dhaqmo ya haddii qofka mataqaana biyo badan cabo badanaaba waxa ugu muhiimsan waxa weeye biyaha shaah badan noqoto kafee noqoto sugar noqoto juice noqoto wuxuu cabo waxaa la biyo badan cabo qofkii ugu yaraan 2 litir maalintii cabo qof kasta qaasad dadka Afrika jooga oo qoraxdu ku badan tahayna iska wadaa biyaha cabnana waa milix badan yihiin marka waxaa la rabaa qofka inuu mataqaana biyo badan cabo dhididka baxaya sababtoo waa yaraanaya qofka marka dhididka badan ka baxo kaadi mareenkii wixii marayay waa yaraanaya marka waxyaalaha keenaya dhagaxana waxay u badan tahay taas marka waxaa leeyahay cuntadan cunno maxaa kamid ah dad baa jira mataqaana cunto too much calcium qaada hadda calcium badan maxaa keena waxa la yiraahdo dawo kale la siiyo oo ka joojisa waxaa kamid ah mataqaana beetroots waxa la yiraahdo ama magaranaysa waxa lagu yiraahdo chocolate iyo berry iyo leeks dawooyin waxaa jirta la siiyo qofka horta biyaha hadii iska raadsan cunto qudaar tiro badan oo la siiyo jirta oxalate waxa la yiraahdo la siiyo qofka calcium baa laga helay oxalate waxa la siiyo oxalate waxaa kamid ah in beetroots halkan la yiraahdo marka cuntada lagu daro qudaarta oo marka taabto waxa uu gudanayaan asparagos mid la yiraahdo chocolate-ka berry-ga leeks-ka celery parsley almond-ka waxa dhan waxa calcium-ki waxa lagu daweyn karaa wax gooniya waxa u baahan tahay kale dawada la siinay waxay tahay qofkii bisami uric acid hadduu ku badan yahay maada la yiraahdo uric acid afartii maado ka mid nahay waxa la alabrinol dawo la yiraahdo lagu yaryaray ayadoo la subiya calcium stone waxa loo biyo badan baa la subiya ayagana qad waxa jira antibiotic dadka qaato antibiotic laga joojiyo dawooyinka qaar baa keena qaar kamid ah qaar in laga joojiyo baa yihiin qaarna cysteine waxa loo baahan yahay medication maada yaraysa cysteine waxa la yiraahdo uric acid alabrinol baa la siiya antibiotic badan baa la siiya qofka maadaama infection jiro marka muhiim waxaa muhiim qofka in dhagaxa keenay wax dhagaxa keenaba waxa weeye maadooyinka dhagaxa suubismaya oo dhan inaad ka ilaalisid waxaa lagu ilaalin karaa cuntadii kan miisaanka shaqo kuma laha laakiin cuntadii aad cunaysay subaga u badan yahay mataqaana u badan tahay biyo la'aanta u badan tahay mataqaana maxaa la yiraahaa khamradu u badan tahay mataqaana dawooyinka la qaadanayo la iska ilaasho waxyaalaha waxay keenayaan marka qofkii inay u sahasho inaysan ku dhicinin waxaana muhiima qofku inuu biyo badan cabo marka biyo badan hadaa cabtid waxa weeye waxyaalo badan oo mataqaana caafimaad aad helaysaa waxayna noqonaysaa qofka inuu u sahasho inuu mataqaana ka badbaado cudurkii iyo xanuunkii marka waxa ugu muhiimsan waxa weeye ma la daweeyaa dhagax ma la jijibshaa marka waxa weeye waxa lagu jijibtaa waxyaalaha ka mid ah qaybaha dawada ka mid tahay special laser baa jira oo qofka mataqaana direct meesha lagu dhufanayo dhagaxa ku jiray wuu jijibinaya oo yareynaya markuu jijibinayo qofka xalsiinaya biyo badan oo cabaya oo ka soconaya in mataqaana isaga dhagaxa laga soo qaadana waa dhici kartaa ama korka laga soo qaado ama mataqaana ibta la mariyo mataqaana ninka mataqaana dakarka in tuubada la geliyo ama dumarka mataqaana la mariyo meesha mataqaana kaado ka imato meesha laga soo qaadaya marka in taa la marna waa dhici kartaa in jirka kore halkaan korena laga qaado iyadana waa dhici kartaa marka waxaa muhiim waxay tahay in la isku khaldin xameytida dhagaxa ku jira iyo midkan ku jira kelida
sababta laba system oo kala duwan bay leeyihiin midka xameytadu badanaa lama jajabin karo haddii la jabshana meesha ma soo dhaafayo laakiin midkan kelida ku jira maadaama kelidu tahay meel u furan banaanka sida kaadu ka timaada kelida waxay aadaa banaanka musqushaa geysaa waxaad garanaysaa marka inay easy u tahay marka waxay ku xiran tahay intuu leegyahay hadduu 8 millimeter ka badan yahay badanaa ma soo baxo dhibteelada soddon jaranjaro meelo mataqaanaa jaranjarooyin oo mataqaanaa ay narrow ah ama yar yar bay tuubadu martaa kaadu marka hadda isbedelayso waxay noqonaysaa meelo mataqaanaa aysan maray kaadu hadda ka arkaysid telefishinka alla ka tusaya meelaha uu ku istaagi karo dhagaxo marka taas baa muhiima inaad kala garataan dhagaxa xameytada ku jira iyo dhagaxa keliyaha ku jira inay laba nooc yihiin kalana duwan yihiin isku sina loo daweynin qaliinkuna labaduba qaliin ku dambeynayaan marka labaduba qaliin bay u baahan yihiin wax laga qabtay u baahan yihiin xanuun badan bayna leeyihiin labaduba xanuunkooda waxay u baahan yihin marka in daweyn qofka la siiyo biyo badan la siiyo antibiotic la siiyo qofku marka saas ku badbaadi karaa haddii aan wax laga qabanina hadda khatarteeda leeyihiin wax weeye infection baa badan oo qof ku dhalanaya infectionkuna wuxuu keenaya qofkii mataqana jirkiisa meelo kale in wax gaaraan marka intaasaan kusoo dhameynaya wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu